السلام عليكم waa islaamay saaxiibayaal dhamaantiin assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waxaa idin wadaa muuqaal ku saabsan sidee cryptocurrency aad lacag ugu samayn kartaa adigoo gurigaaga jooga muuqaalkeena marka intaas ayuu ku saabsan yahay marka adoo raali waxaa kaa codsanayna channelkan subscribe saarto muuqaalkan like saarto oo share gareyso ugu yaraan hal qof mahadsanidii markaa rabto inaad cryptocurrency lacag ka samayso sababtoo inaad ogaataa cryptocurrency qaabka u shaqeyso cryptocurrency waa suuq oo ah suuq caalami ah waaye oo laga shaqeysto invest ugu shaqeysan kartaa waxaa ugu shaqeysan kartaa oo kale mining waxaa kaloo ugu shaqeysan kartaa oo kale trade marka saddexdaas baa loogu shaqeystaa cryptocurrency horta dad waxaa jira aan kala aqoonin cryptocurrency iyo bitcoin inay laba kala yihiin malayaan laakiin ma aha bitcoin waxaa waxay ka mid tahay cryptocurrency waxaa la isku dhahaa all coins oonan la taaban karin oo hadda caalamka laga aqoonsan yahay sida bitcoin ethereum tron USDT waxaas coinskaas oo dhan waxaa la isku dhahaa cryptocurrency waa coin kasta oo ka jiro caalamka oo la aqoonin waaye macnaha aan la taaban karin oo la yaqaano caan ah marka intaas waxaa la isku dhahaa cryptocurrency three ways aad ugu shaqeysan karto cryptocurrency waxaa ka mid ah inaad mining samayso ama macdan qudasho aad samayso miningka waa qaab ka mid ah oo loogu shaqeysto cryptocurrency waa qaabka ugu fiican aanan khasaaraha lahayn oo loogu shaqeysto cryptocurrency haddaa mining bilowdo waxaa ka samayn kartaa maalintii $500 wax badan waa ka samayn kartaa marka maalinta xataa waxaa ka samayn kartaa 20 BTC awoodda inta gaarsiisan tahay ka hadlaa mar walbo intaas ka samayn kartaa marka ku dhahay awoodda inta gaarsiisan tahay ka hadlaa marka maalintii inta ka samayn kartid waxaa waa 20 BTC hadda baa ka samayn kartaa waa macnaha waa habka ugu fiican ee laga samayn karo cryptocurrency nooc walbana la mine gareyn karaa bitcoin oo kaliya ma aha waxaa mine gareyn kartaa tron coin walba waa la mine gareyn karaa miningka waxaa waa macno qudasho macna marka kaaga baahna qarash badan waa mashruuc ahna ilaa hadda Soomaaliya shirkado badan aan ka bilaabay marka waa mashruuc weyn waaye oo shirkado badan oo ku hamiyaan inay sameeyaan oo kaliya waxaad furanaysaa oo kale post weyn aad furanaysaa sidii kale adoo qarash weyn isgelin waa $500 ku bilaabi kartaa oo kaliya waxaa samaysaa meel yar furanaysaa oo kaliya waxaa soo gashanaysaa waxa loo GPU ilaa 5 xab camal keensanaysaa oo noocyada awood badan ah 3.8 RTX 3.8 oo kale keensanaysaa kadibna waxaa ku xiraysaa systemkaaga ama computerkaaga kadibna waxaa jira software oo mining ku sahlay kuwaas la soo dugaysaa kadibna GPU-gaaga awoodiisa waxay kugu sii hayaan marka cryptocurrency aad ku mine gareynaysaa markaas adoo wax khasaare aan gelin investment aan sameynin website ka lacagtada aan ku aamin marka waxaa aaminsanahay qaabka ugu fiican ee ugu horeeyo ee cryptocurrency lacagta lagu sameyn karo inay tahay mining marka mining waa habka ugu horeeyo ee lacagta laga sameeyo marka waxa kula talinayaa eeda inaa ku bilowdo direct inaa cryptocurrency lacag ka samayso qaabka labaad ama weeyga labaad lacagta ugu sameyn karto cryptocurrency waxaa ka mid ah inaad trade aad samayso meelaha lagu trade gareeyo sida IQ option kan oo kale binary option kale MetaTrader 5 oo kale mid kale 4 la dhaho sina MetaTrader 4 meel badan jirto lagu trade gareeyo application badan ka saacidaya website badan oo legit ah marka meelahaas inaad ku trade gareyso eedana waa macnaha qaabka labaad ee lacagta lagu sameyn karo oo lagu sameyn karo waliba cryptocurrency wadadan aad idin soo sheegay oo lacagta lagu sameyn cryptocurrency eedana risk waa leedahay 50-50 ah boqolkiiba ka tan faa'iido waa boqolkiiba ka tan khasaaro waa jirtaa marka khasaaro xoog waa leedahay faa'iidana waa leedahay waa isku mid waa macnaha marka galaysid waa inaad u bareertaa khasaaraha waana inaad u bareertaa faa'iidada labadaba waa inaad ku talgashaa haddii aad faa'iido bis soo qaadana waa khasaaraysaa mideeda kale khasaaro waxaa kaga imaan kartaa kaliya inaad qabso weyso macnaha guri qofan guri hayo kale waa khasaaraha meeshan waxyaabo badan khasaarida ka jirto faa'iidana waxaa waaye inaad naftaada taxakunto kadib aad ka faa'iidi kartaa marka labadaba waxaa waaye faa'iido khasaaro waa jirtaa 50-50 waaye marka eedana waxaa waaye waxaa lacag ugu sameyn kartaa inaad lacagtii haysato trade-ka ku gal lahayd waxaa kaloo lacag ugu sameyn kartaa inaad deposit sameyn karto aad ku sameyn karto intaan meel perfect money aad haysato okay waaye mastercard hadda haysato kale labadaas ugu muhiimsan meesha ku trade gareynayso labadaas ugu muhiimsan intaas oo meel hadaad ku soo sheegay oo ah meta iyo expert option iyo IQ option intaas saddexdaas ugu muhiimsan marka saddexdaas hadda haysato waa trade gareyn kartaa lacagta inaad haysato sidoo kale waa okay waaye marka qofka xigta ma leh hadda waa bilaabi kartaa weeyga saddexaad cryptocurrency lacag ugu sameyn karto waxaa waa investing inaad caadi u maalgashato aad sugto sanadooyin ama wixii kugu qaadato intay faa'iido gaarayso investing saas waaye investing marka laba qaab oo noqon kara inaad mastercard ka maalgashato أنا مستركار لعبتها كسر قطو ينا استمعاشو قف صرف له أو ده يسو طور لعبتاس أنت كل طورة مركز ده مستركار صومالي كمان قبلايا إن باينسي ما قبلايا إن إنفست كسميسو أما ديبوزيت سميسو سيدو كله ترست ولا تجرو لواس أبليكيشن أو عنسن أنا وأميسن لو ده كمان قبلايا مستركار صومالي مركز وأنا مستركار دبلاس أيتتا مركز أيضا إنفست مركز سميسو أنا أيتتا لعبتي أيتتا مستركار أنا صومالي هن أما قف كلا استمعال كتير
marka intaas mid hadaa haysatid waa investment waa sameyn kartaa. Investmentkaas markaas lacagta markaa kusoo shubato wuxuu sameeyaa kor u kac. waa taqaana cryptocurrency meel ma taagno, lacag oo la taaban kara maahan oo meel taagan. marka waxay sameysaa dhaqdhaqaaq ah, way isbedeshaa, isbedelay sameysaa. marka kor haday u kacdo waa faa'iido, hoos haday u dhacdo waa khasaare. marka investmentgan hadaa camal aad soo gadato 1000 TRX hadaa soo gadato kale 1000 TRX ku oole qiimaheeda bisa hoos u dhacay. 1000 TRX kaama burburayaan kulligood. 1000 TRX hada camal haday ahayd $1000 oo kale trust wal camal aad joogtid $1000 kor kuu soo qorays qiimaha 1000 TRX. marka xabadkii waxaa markaas $1 waa hadee marka ma subaxdii dambe inta soo kacda aragto 0.00001 xabadkii hoos u dhacdo, halkii xaba ay tagto 0.0001 1000 TRX markaas qiimo yar ay yeelanaysaa. qiimihii marka doolarka meesha ku saarnaa hoos u dhacay wuxuu tagaa oo kale $30 oo kale. marka qiimaha oo ku taagnay coinkaas hoos u dhacmay, coinkaas kaama baabi'in, coinkaas lagama qaadan, lagama cunin sida inaa qamaartamayso kale. marka qiimihii bisa hoos ka dhacay, marka qiimihii la gaday hoos ka dhacay. saas waaye faa'iidadaas kala socotaa. marka iyadoo qiimo yar soo iibso, iyadoo qiimo badan iska iibo waa investment saas leh waaye. marka hadaa maqlid cryptocurrency lacag laga sameeyaa, saddexdaas qaab leh fiiri bis. saddexdaas qaab wax aan ahayn oo crypto lacag looga sameyn karo ma jirto. saddexdaas qaab raac, tilaabooyinkaas raac waa ka faa'iideysaa insha Allah. maanta cashirkeena intaan ku egyahay. channelka hadaa ku cusub tahay subscribe saar, muuqaalkan like saar, u share kale asxaabtaada waxaad ka gaarto ugu yaraan hal qof. mahadsanidin.